أي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاو حقا وكهلا لنا أرنتي في فؤاد يا موضوع عيسي والشيخ يجو ماتا يا أرنكا وصو هذا القرن مركا وحبيان هنا الشيخ يجا سي هنجبات بدلنا لوجو وضو ما تديدنا هنا بيان دليتي كسونا مع حقا نسكوها علي أو نسكوه إيماني أو نسكوه وافقني رج دليتي كتيجا نقوا وماتا ديدن يا حق الشيخ يجو وكعنا ما أنت لقى بلا بديات بالحنا يكيد تراك نوبي مني نوبي مادو وكا وسا دليتي دين وكاسا ودين يا نكسبوا وكسودا كيب دليكاسو وسا هذا الكلام ديار بونا واحد كسوس سميسيمبا ديار بونا waxaa kaloo taala anigoo ka hadlaya markii reer kartoon oo dhalinyarta reer kartoon ka socda waxaan maanta leenahay xaaladdan iyo lagu jiro maanta jamhuuriyadda dhalinyarta jamhuuriyadda Djibouti dhammaanteedba dhibtaa iyo xaqdarrada askari hadday noqoto hadday noqotaba taasoo kale leenahay baadilka ma yeelan baadilkaasoo kale ma yeelan waxaa kaloo jirta situaasyon adag maanta lagu jira dowladda dhanba ragii 40 qof ee dalka xakumay ay siday doonaanba u taliyaanba aan ka hadalno frontierkii amba xidhnaaye ee daadku geesi ahaa le 1 September loogu talagalay in la furo situation dadka lagu degmooyina shirkad dowladda maqleysiin yon des semaines après amba 3 semaines après waxa la furi doonaa frontierada la furi doonaa si dadkii loo kala baahiyo qaarkood xaga baxaan Ethiopia hadii noqoto Soomaaliya hadii noqoto waxa la isku heshiin doonaa si nili kala partageeyo oo effective yaro kooban loo helo intaan la dhabarka laga jibiyo taas lagu tala jiraa xilliga waxaan roonayaa shacabka la joogto maanta waxa taala xaalad adag baa taala waa xukuumadda gebigeega waxa la wada diidan yahay oo arrinkaas ka kacay ninka askariga ee Fuad xilliga waxaan leeyahay maanta dhabar adayga waxbana xaga bixina hawl baan noo taala saan waan rajo qabnaa wayna socon liiskan way soconaa wax joog doonana joogin doonana maaha aabidan sidaa uu socon doonta dulunka uu sheekh yagu arkay dulunka lagu hayo umada adeeska noqotay adeesha noqoto dulunka uu sheekh yagu diiday anaguna waa diidana waxa uu xaq u kacana maanta la ogaado dawladda ogaato maanta anagu waxaan nahay cadil صح ma cadil maanta waa sida weeyaan عبد الله عبديو حد يا شيخ اسكت